xilli booqasho aynu ku gaarnay degmada Ceelcadde ee gobolka Gedo ayaa waxaan u kuurgalnay xaaladaha horumarineed iyo kuwa baahi ee ka jira degmada Ceelcadde. Ceelcadde waxa ay ka mid tahay 8 degmo ee gobolka Gedo waxaana ay ku taalaa bartamaha gobolka Gedo dhulka joogiisa sarreeya ee loo yaqaan Biir Haro. Ceelcadde waxaa la aasaasay sanadii 1960 waxaana ceelkii u horeeyay laga qoday horaantii 1967 waxaana iskuulkii u horeeyay laga hirgeliyay sanadii 1971. dhanka caafimaadka habayno eegno Ceelcadde waxaa isbitaalkii u horeeyay laga hirgeliyay horaantii 90 iyadoo ay iska kaashadeen hirgelintiisa dadka deegaanka iyo hay'adda ACRC. waqti xaadirkan aynu joogno Ceelcadde waxa ay leedahay iskuul hoose dhexe iyo sare oo ay usoo waxbarasho tagaan arday kor u dhaafaysa 700 iyadoo jaamacadna horaantii sanadkan laga hirgeliyay qaybteeda caafimaadka. waxaase xusid mudan in laga hirgeliyay horaantii sanadkii 2013 macahad lagu baranayo culuumta sharciyada iyo carabiyada kaasoo lagu magacaabo Al-Furqaan iyadoo difcadii u horeysay oo gaaraysay 63 arday ay ka qalin jebiyeen sanad dugsiyeedkii 2014-2015. dhanka kale Ceelcadde waxaa laga hirgeliyay dhawaan isbitaal heer degmo ah oo ay iska kaashadeen hay'adda tamkiin iyo dadka deegaanka waxaana qayb lixaad ka qaatay jaaliyadda reer Ceelcadde oo kuwan qaar ka mid ah bulshada degmada Ceelcadde oo ka warbixinaya xaaladaha horumarineed iyo kuwa baahi ee ka jira degmada Ceelcadde. waxaa la aasaasay Ceelcadde oo laga qoday ceelkii u horeeyay 67 marka 67 baa rasmi loo degay 67 baa rasmi loo degay intii ka dambeysay Ceelcadde kolba waxaa ku darmanayay iskuul baa laga dhisay 71 waa dugsiga u horeeyay laga dhisay iskuulka 71 waxaa ku xigay dugsi dhexe dugsi hoose dhexe buu ahaa dugsigaas oo looga baxo iyadoo sidaas looga baxo ayaa Ceelcadde dawladda ku dhacda kolkaasna laga qoday ceelal badan oo riyad 3 ceel laga qoday ayaa dawladda ku dhacday. waxbarashada aaska dambe wuxuu ahaa 80 90 iyo 3 NCA baa bilowday dabadeedna hay'ad la yiraahdo Iqra ayaa ku darmatay halkaas ay ka bilowdeen dugsi hoose dhexe ay wadi jireen dabadeedna waxaa isku tashaday bulshada Ceelcadde waxayna samaysteen dal iyo dibadba isku xirmeen dabeetana macallimiin baa la keenay gobolka iyo daafiisa iyo qaar Itoobiya la keenay dhowr dufca ka baxday marka iskuulka dugsiga sare ilaa iminka dadkii ka baxay jaamacadda wada hayay inta badan oo wada jaamici hadda dalka ku ururiya shaqo ka bilaabay dugsiga sare dhiseen oo jeebkooda ah. hadda waxaa la furay jaamacad caafimaad waa la dhigaa way noo socotaa jaamacaddaas urur waxay leedahay jaamacadda banaadir hadda waxbarashada waxaa weeliya intaas maxad baa jira maxad lagu dhigo magaalada dhexeeda oo qur-aanka ayaa lagu dhigaa iyaduna maxad weyn oo ballaaran xagga caafimaadka wuxuu leeyahay isbitaal yar buu leeyahay oo bukaan socda waxaa laga dhisay hadda sanadkii dhawaa 2015 ayaa laga dhisay isbitaal weyn lama qalabayn weli mana howlgelin. waxaan ka codsanaynaa hay'adaha arrimahaas oo kale ku shaqeeya inay isbitaalkaas noo qalabeeyaan noona howlgeliyaan. waxbarashada dugsiga ismu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay tasiiraad kale ayadana in nagala kaalmeeyaan rabnaa xagga caafimaadkana in isbitaalkaas naloo qalabeeyo saasaan codsanaynaa. xagga degmada iskuulkeedu wuxuu u shaqeynayaa si xawli ah oo aada u wanaagsan waxaa iska kaashaday bulshada Ceelcadde iyo jaaliyadda reer Ceelcadde ee iskuulka hadda aad ayuu u wanaagsan yahay 100% weeye xaaladiisu rajo wanaagsan uu qabaayo asagoo hadda waxa weeye dugsi hoose dhexe bas uu shaqayn jiray hadda oo dugsi sarena ku darsantay jaamacadna loo bilaabay rajada waxa weeye ay bulshadu qabta ama ardaydu qabaan ama macallimiintuba ay qabaan waa diidiila aad u wanaagsan 100% insha Allah rajo wanaagsan ayaana waxa weeye aad u rajaynaynaa bulshada dhageysanaysa dhamaantood waxaan wada gaarsiinaynaa in waxbarashada loo guntado. Usmaan Sheekh Cabdullaahi caafimaadka Ceelcadde meeshaan wax dhibaato ah kolley ma jiraan ilaahay waa mahadle ilaahay waa raxmadiisana siiyey haddii aan ka warramo
health centerka ama FCH-ka saddexdii biloodba baalkii tarakeer ayaa daawo bixin jirtay dad baa ka shaqeeya ilaa 8 qof meelahaas dhan marka dadkaasna facility-geeda ama salary-gooda ay bixin jireen waxaan si joogta u helnaa tallaalada iyo wixii la mida laakiin si fiican buu isbitaalku u shaqeeyaa daawada yaridaas unbaana hayso shaqaalo waa shaqeeyaan guddigu waa shaqeeyaa gaadiidley oo umulo iskaga dhintay iyo kaba soo qaadada wiigii hore waxaa dhintay 2 haween oo dhiig la-aan ah walaba labadiiba meesha ku umulayeen waxaan jeclaan lahayn in isbitaalku uu helo dhakhaatiir oo qualified nurse ama dhakhtar oo guud in la helo ma aan hayno shaqaalaha intiisa kale wayna ku filan yihiin wayna joogaan maxamed xuseen cabdi kana tirsan ganacsatada degmada Ceelcadde ayaa ganacsiga degmada ka socda wuxuu yahay mid aad u sareeyo gobolka Gado ganacsatadiisa iskuma xirno marka waxaan u sheegayaa ganacsatada gobolka Gado inay isku xirmaan oo gobolka tayadiisa ay kor u qaadaan oo gobolka ma aragtay ganacsigiisa ay mideeyaan waxa weeye degmada Ceelcadde hadda waxyaabo badan baa ka socda oo qayb ganacsatada ay muujiyaan waxa weeye hadda masaajid weyn oo qabyanaga ah ganacsatada Ceelcadde ayaa dhistay oo ka qayb qaadatay haddaan nahay degmada Ceelcadde horta ganacsiga aad ayuu u fiican yahay dhanka ganacsiga waan ka dhisanahay dhanka waxbarashada waan ka dhisanahay ma sha Allah inkastoo hadda roob lixaad la eedeen oo roobka hadda micnaha awgeed xoogaha micnaha ii sheeg daruuriga iyo micnaha waxyaalaha noo iman jiray jidku iska dhiiri uu noqday haddana aad ayaan u fiican waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in jidku uu noo furmo ganacsiga siisa uu noo socdo caanaha geela helaa hilibkan helaa wax kasta helaa magaalada ma sha Allah nabadgelyadu aad bay u fiican tahay waxaan gado waxaa ka mid ah sida burka bariiska sokorta iyo bagaashka jimay tafaariiq intaba aadan Ibrahim Maxamed Bish xaalada ganacsiga degmada Ceelcadde waa aad iyo aad u sarreeya kulliyan waxa ku soo beeray ganacsiga 2012 bishii saddexaad oo soo beeray aan ka gaaray horumar aduun hadda la taaban kara gaar waan gartay marka waxyaabaha adiga aad iibisay maxaa kamid waxa kamid ah shoobinka iibiya aan iibiya kalaan iibiya sidoo kale jaajiray waan hoo telefoonada dadka u jaajireeya lacagta sidoo kale waan toorada shaqaalaha mid ka siman marka lacagta wax lagu gato ma lacag Soomaali bas ah mise lacag badan ayaa meesha ka soo ayuuna waa taqaan inta doolarka waa socota English baaska waa la isticmaalaa intaan Soomaaligan aydan aad iyo aad ma isticmaalaa mudda wadankan anigoo Nuur Ibrahim Yusuf ahna motorista degmada Ceelcadde ilaa xilligii dawladda Ceelcadde midka hadda shaqeeya waxaa la bilaabay 85 waxaa qoday dawladdii Maxamed Siyaad Barre ilaa yadda waqti dawladda gacanta ku haysay dhaqaalihiisa iyo wixii ayada haysay ilaa 91 wixii ka dambeeyay ka dhac ka deg baan ahayn mar dadweyne gacanta ku hayay oo xoolaha miyiga aan ku dayactiran jirnay iyo mar hay'adaha caawiyaanba ka dhac ka deg baan ilaa intaas ahayn hadda saacadan la jooga hal motor ah shaqeeya 5 motor oo gubana waa agtaala oo burburkii iyo dagaaladii ku gubatay hal motor ah shaqeeya hal bamba iyo hal motor ah saacada hadda shaqeyso dhismihii la dhisay oo ay xilligii dawladdu ay dhistayna kulli waa burbura haamihii ay dawladdu dhistay kulli waa dulduleeshameen oo beebkoodii oo dhan waa baahi badan oo saas ahaan qabnaa ilaa intaasna hay'adaha caawiyaa iyo dadweynaha naga iyo anagu isku tashanayaaba saasaan wax ku wadnay hadda weli sidii baan wax ku wadnaa wixii caawinahay waa u baahan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay isla markaana idiin soo tabinayay anigu Cumar Cabdiraxmaan Sheekh intaan barnaamij midkan lamid ah ku kulmi doono nabadiino